soo dhawaad muqdisho aad joogtaa waayaan aad joogtay aniguna ku faraxsanahay inaan kusoo horfariisto oo su'aal ku weydiiyo iyo weliba heestii muqdisho marka hore soo dhawaad dhawaan kooxda xidigaha geeska oo hore u tirsaneed inkastoo ugu maqaalada in xidigaha intaan safartood aad jirtay oo fanaanad geesaysay oo magac lahayd haddana gudoomiyaha iyo xidigaha qaarkood waxay sheegeen in adiga oo yurub geeya ah nimcaan hilaac Hodan Cabdiraxmaan iyo saxaabad kooxda laga saaray adiga dareenkaada ka waran iyo arrinkaas soo yeeray wallahi waa su'aal wanaagsan walaalo anigu dareenkayga aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay kullay Hodan Cabdiraxmaan iyo nimcaan hilaac iyo Yusufana biyo anigu xidigaha dhexdooda fanaaniin kuma aanayna hortoodna fanaaniin baan nahay dibadna waan noqonaynaa iyaguna go'aanka ay isla gaareen gudoomiye xasan dhuxul iyo inta kale xubnaha meesha joogto go'aanka ay isla gaareen go'aankooda aad baan u soo dhaweynayaa kamid waxaan leeyahay fanaaniinta aad ka saarteen xidigo waxba idinma noqonayaan shacabka Soomaaliyeed ee fikirka khaldan laga dhaadhicinayna waliba gaar ahaan anaga reer Soomaaliland anigu fanaanad reer Soomaaliland anahay fanaanad afka Soomaaliyeed ku heestaanahay meel walba afka Soomaaliyeed lagaga hadlana waan tagayaa muqdisho kaligeed meel walba afka Soomaaliyeed lagaga hadlo waan tagayaa xidigahana waxaan leeyahay munaafaqada aad shacabka Soomaaliland gelinaysaan ka daaya baan leeyahay dabcan xidigaha waxay wataan magacii geeska Afrika adinka waxaa dhihi karaa fanaaniintii ugu shidmay oo lagu jeclaa dabcan way ka saareen marka waxaa jirta in idin soo wadaageen mise waxaad maqasheen oo kaliya warbaahinta in idin ka saareen may waxbana lama soo wadaagin waxna lama soo wargelin laakiin iyagu go'aankii ay waqti xaadirka ayagu gaareen kali ahaantooda un bay ku dhaqaaqeen wallahi afarta fanaan ay ka saareen anigu afar ku ahayna waxaan u malaynayaa in aanay ka xumayn fikirka ay soo jeediyeen oo sidaan ay ugu faraxsan yihiin waana soo dhaweynayaa fikirkooda dabcan bulsho Soomaaliyeed oo afka Soomaaliga inta badan ku hadasha markii ay maqleen in dabcan dareenkooda muddo ay wadaageen baraha bulshada dabcan waa aragtay shacabkaas maxaa leeyahay horta shacab kale maaha oo shacabka reer muqdisho maaha waxa fikirka khaldan ay ka dhaadhicinayaan laakiin iyaga laftirkooda dee qadiyad bay gelinayaan oo bil aadan waxbay isweydiinayaan Somaliland qof ku midoobay in ay yacni xumaan un ay ka shaqeeyaan ku midoobay aan maqlina baan leeyahay Somaliland meel walba joogan iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba joogan dadka qaar waxay dhahaan waa soo raxmada qarni geeyo hooyo ku bixisay mise fanka ku bixisay may fanku igu baxay inta fanaanada aad maanta laakiin waxaa codsigaasi ka yimiday oo kulli niyadeyda wixii ku jiray aan sheegay iyo fuliyay walaalkii daar cali soo salaamayo heesta eriyada دار على الجوانب لكن دار على الجوانب معها نوعا ليه أنت فكرة خلدنك أماني تجلس في فكرة خلدنا هاي الكبر ما بهدي يوبي ده هالشيء ولا نو ناكسي هذه يعني وده قف كل وش وجود ما وش يضربه يعني واحد من يملوا عدا من كمله ده عندنا كم فرصة كنتنا مثلا شعب ده يبغى الله الصوماليين يا ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto salaam